waa filin kartoon xaraabo iyo madadaalo ah waxaana lagu maaweeliyaa oo la iskaga jeediyaa caruurta dadka waaweyn laftarkoogana saameyn ayuu ku leeyahay guud ahaan filin kartoonkan waxaa matala laba shakhsi oo kala ah Tom oo isagu ah curi iyo Jerry oo isagu ah tiir aad u caqli badan oo badanaa ka guuleysta curiga Tom waxaana soo raaca ayga Spile oo ku soo gala qaab uu jiirku ku kabaynaya ama uu ku dirayo curiga kadibna uu aygu dilaya ama waxyeelo soo gaarsiinaya curiga Tom maadaama uu ku xoog weyn yahay filin kartoonkan oo qabsaday dhammaan caalamka oo dhan waxa alifay oo fikirkeega lahaa laba nin oo la kala oran jiray Wilson Hane iyo Joseph Barber Wilson Hane waxa uu dhashay sanadii 1910 waxaanu ku dhashay New Mexico laakiin dhalashahan waa Suuriyan waxa uu shaqo ka helay studio Harban and Design oo caan ku ahaa sameynta filimada caruurta sanadii 1930 maadaama uu caan ku ahaa sawiraanta gacanta lagu sawiro sidoo kale Wilson ninka la wadaagay fikirka sameynta filin kartoonka Tom and Jerry waxa uu ahaa Joseph Barber Joseph waxa uu dhashay sanadii 1912 waa muhaajir ka soo hijrooday jasiiradda Siqi ee Itaaliya halkaas oo dhalashahan ka soo jeedo isagoo qaxooti ahaan u tagay New York Joseph waxa uu ka shaqeeyay stuudiyaal badan oo caan ku ahaa sameynta filimada caruurta ugu dambeyntii sanadu markay 1930 Joseph waxa uu u guuray California halkaas oo ay ku kulmeen saaxiibkii Wilson iyagoo iska kaashaday in ay wada furtaan stuudiyo filimada caruurta soo saara waxa ay sameeyeen filin kartoono badan laakiinse kumay guuleysan jaayisadii Oscar oo ahayd jaayisada ugu weyn xilligaasi filimaanta ay sameeyeen waxa kamid ahaa Scooby Doo Dora Wamoso iyo sidoo kale Maasha Wadu waxa ay sameeyeen filin kartoonkan la magac baxay Tom and Jerry sanadii 1937 iyagoo oo sameeyay xalqado badan kuna guuleystay jaayisada Oscar in ka badan 18 jeer marka aad daawanayso filin kartoonkan waxa uu dareenkaagu mar walba la jiraa jiirka Jerry waxaad jeclaanaysaa in jiirka Jerry uu mar walba guuleysto iyadoo haddana noloshaada caadiga ah aad jiirka necab tahay bisadana aad jeceshahay dadka qaar ayaa aaminsan in filin kartoonkan Tom and Jerry uu ka mid yahay filin kartoonada la daawado ee aamusan laakiin mararka qaar waa ay hadlaan waxaanad arkaysaa iyagoo ku hadlaya jumlad yar oo gaaban dadka qaar ayaa aaminsan in filin kartoonkan laga metelay Yuhuudda Kiristaanka iyo Muslimiinta sidoo kale gabadha ku jirta Tom and Jerry ee caanka ku ah wajiga qarsoon ayaa iyana lagu sheegay in ay tahay Hattie McDaniel oo ah gabadh jila ah codsatayna in filin kartoonkan dhexdiisa wajigeega lagu soo bandhigin si aanay caruurtu uga xaraabadaysan laakiin xalqadaha qaar ayaa wajigeega lagu arkaa si lama filaan ah xalqadii ugu dambeysay ee la soo bandhigo ee Tom and Jerry oo ahayd xalqadii 103 waxa ay ku dhamaatay Tom and Jerry oo fadhiya wadada tareenka iyagoo murugaysan oo niyad jabsan halkaas oo ay ku dhinteen